Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Ismaaciil Aadan. Kanaalka aad daawanaysiin waa ugu horreyn waa maxay kalsoonida? In aad naftaada ku kalsoonaato ma aha wax lagu micnayni karo inaad isla weyn tahay ama aad isla qab weyn tahay. Inaad isku kalsoon tahay waa muujinta iyo ku dhiiranaanta soo bandhigidda fikirkaaga maanka ku keedsan adiga oo huba arrimaha aad ka hadals leedahay asal ahaantooda iyo guud ahaan. Kalsoonida naftu waxa ay kugu dhiirigelisaa in aad soo bandhigto fikirkaaga, wadaagna aad gelin karto talo wadaag kolkii ay noqotana aad talada tii saxda ah wadarta guud ay isku raacaan in aadan ka biidin. Waa maxay kalsooni darradu? Kow, inuu qofka naftiisa ka dhaadhiciyo kolka horeba in aanu waxba qaban karin. Laba, inuu iska dhaadhiciyo inuu yahay qof liita oo aan dadka la jaan qaadi karin. Saddex, inuu noqdo qof ka baqa soo bandhiga fikirkiisa. Afar, inuu ka baqo ka jawaabista su'aalaha uu garanayo. Shan, inuu hamigiisa ka tanaasulo isaga oo ka baqanaya guuldarrada ku timid. Lix, wuxuu ka baqaa guusha iyo inuu meel sare ka gaadho. Qofka sidee ayuu kalsooni u abuuran karaa? Maxaase lagaga baahan yahay inuu sameeyo? Qodobadan ayaa laga yaabaa in ay ku caawiyaan insha Allahu tacaala. Kow, qofka inuu noqdo Allihii abuuray uuna weydiistaa maxaa lagu abuuray, faa'iido mise khasaare u joog. Waa inuu Alle ku xirnaadaa oo uuna ka cajisin wanaagga Alla faray xumaantana ka dheeraada. Laba, rajo sami ku noolow, waqti kasta wanaag ku muuji wax kasta oo ka dhaca hareerahaaga iyo higsigahaaga nololeed. Saddex, waa inuu qofka runta isku sheegaa oo uu ka baxaa khiyaaliga uu tusayo naftiisa. Run ka sheeg ujeedooyinka aad u nooshahay iyo waxqabadkiisa nolol maalmeed. Afar, ku kalsoono waxa aad samayso si dareen fiican aad ugu lahaatid iyo isbeddelka habdhaqanka noloshaada ama samayntooda.